haddaad cunto cuni waa inaad iyadana ay kula cuntaa haddaad dhar xidhan waa inay kula xidhataa macnaa dhar baad iibsatay maanta iyadana xaq waxay u yeelatay inaad wax u iibisaa maaha inaad xaafadana aad tidhaahdaa soor yar iyo wax yar karsada adiguna maqaaxid intoo tagto hilibgeel aad ka cuntaa ma cadaalad baa cadaalad maaha waa dulmi waxaad cunaysa reerkaaga waa kula cunaan buu nebigu leeyahay soo iibi hilibgeelko waxaad tidhahdaa noo kari annakii carruurtay adigu aan wada cunay waxaad cuni baa nebigu yihi xaaskaadu waa inay kula cuntaa waxaad xidhatidna waa inaad iyadana u xidhaa dhar baad gadatay waa inaad iyadana maalinta wax u iibisaa oo tidhahdaa aniguba maanta garan yar baan gatee adiguna ma aragtaane hoo dhar yar ku gada intan yar allah ku barakeeye cadaalad haddaad 2 xas leedahayna iyo 3 xas iyo 4 xas hadduu ilaahay ku siiyeyna cadaaladda waa inaad ilaalisaa kalgacaylka jacaylka taa adu ma haysid oo qalbigu meel buu u badanayaa laakiin xagga cadaaladda waa inaad waqtigaaga iyo wixii masaariifa reerka si cadaaladda dadka waa inaad u siisaa oo reer walba wasnigiisa iyo miisaankiisa iyo miqdaarka uu leeyahay masaariiftiisa waa in loo garaabayo dadna waa in la siiyaa ilaa islaanta 6 ciyaala haysiyo tan 2 u wada haysa isku kharash maaha laakiin waxa la diidan yahay inaad tan aad bishan wax siisatana aanad waxba siinin taa lama ogole mid walba masaariifta iyada ku filan iyo ubadkaaga waa inaad siisaa liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi waman qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah ba ilaahay kan arzaaqada u waasicina anakuba isaguna reerihiisa ha u waasiciyo ha u ballaadhiyo ka ku koobnay ku yaraynayna ba ilaahay yiri inta uu karaya ba ilaahay xabbixiyo qofka bini aadanka wuxuu san karin ba ilaahay ma basaarin be وهداد وحيبسن وين هذو يبسا يدا هداد دليبو نبي يقول هواك إلا